sidee ayay dowladuhu u doortaan caasimadooda? Caasimad waa eray asal ahaan ka soo jeeda afka Carabiga oo ah luqadda labaad ee dalkeenna, waana afka saamaynta ugu badan ku leh afka Soomaaliga. Saameyntani waxa ay salka ku haysaa xidhiidhka diinta, dhaqanka, ganacsiga, deriska iyo dhalashada inaga dhexeeya. Soomaalidu waxa ay ku faantaa in Islaamku soo gaaray isagoo aan Maka gaadhin. Sababtana waxaa lagu sheegaa in dhulkan uu martigeliyay asxaabtii rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo laga soo qaxiyay magaalada ay u dhasheen. Magaalada Saylac ayay ka soo degeen, halkaas ayayna ka hirgeliyeen masjidka biyuhu qariyeen ee Masjidul Qiblatayn. Waa masjid leh 2 qiblo. Tan koowaad waa magaalada Baytulmaqdis oo ah meeshii loo tukan jiray bilowgii Islaamka. Qiblada labaadna waa magaalada Makka oo maanta loo tukado. Macnaha ereyga caasima afka Carabiga wuxuu ka noqonayaa ilaalinta. Macnaheedu waa magaalo si weyn loo difaaco, lagana ilaaliyo in ay gasho gacanta cadowga. Ereyga magaalo madax ayaa ah ereyga Soomaaliyeed ee u dhigma caasimad. Luqadda Ingiriiska capital ayaa loogu yeedhaa caasimadda. Waa erey asal ahaan ka soo jeeda erey afeedka Laatiinka ee kabuut oo macnihiisu yahay madax. Madaxu waa meesha laga hago jidhka intiisa kale. Sidaas la mid ah, caasimaddu waa meesha laga maamulo dalka intiisa kale, waana meesha martigelisa madaxtooyada dalka looga taliyo. Wasaaradaha qabta shaqada dowladda alaaba waa magaalada ugu dadka badan waddanka oo dhan. Haddaba sidee ayay dowladuhu u doortaan caasimadahooda? Juqraafiga, deegaanka ama goobta ay dhacdo magaaladu waa sababta ugu muhiimsan ee dowlado badan ay ku doortaan magaalo madaxdooda. Dowladaha qaarkood ayaa doorta meel dhex u ah dalka intiisa kale oo waqti gaaban ay ku soo gaari karaan bulshada ku dhaqan gobollada kala duwan ee dalka. Dowlado kale ayaa doorta goobo leh difaacyo dabiici ah oo fududayn kara ilaalinta ama badbaadinta caasimadda haddii dalku uu la kulmo duulaan iyo weerar. Haddii aad soo qabato khariiradda adduunka, waxaad arkaysaa waddamo badan oo caasimadoodu ku taalo kala barhka dalka, sida magaalo madaxda Spain ee Madrid, magaalo madaxda Sacuudiga ee Riyaad, iyo magaalo madaxda Belarusia ee Minsk. Dowladaha qaarkood waxay doortaan magaalo astaan u ah dhexdhexaadnimada iyo isku haynta bulshada, sida Nigeria oo sanadkii 1991 caasimadeedii taariikhiga ahayd ee Lagos ku beddeshay Abuja oo laga dhisay bartamaha waddanka si ay sinaan iyo dhexdhexaadnimo ugu muujiso bulshada dalka oo si weyn ugu qaybsan dhinaca diinta. Waxaana lagu tilmaami karaa tallaabo looga dal leeyahay xoojinta midnimada dalka. Heshiis siyaasadeed mararka qaarkood heshiisyada siyaasadda ayaa kaalin weyn ka qaata doorashada magaalo madaxda. Tusaalaha ugu caansan ee xaaladdan loo soo qaadan karo waa wixii ka dhacay Mareykanka qarnigii 18aad. Dhinaca waxaa taagnaa wasiirka maaliyadda Alexander Hamilton oo ay taageersanaayeen isteedyada dhaca waqooyiga Mareykanka oo dalbanayay in caasimadda laga dhigo meel ka tirsan gobollada waqooyi ee dalka si ay dowladda uga qaataan deymihii dagaalka gobonnimo u dirirka. Geesta kale waxaa joogay gobollada koonfurta Mareykanka oo doonayay in caasimadda laga dhigo meel ka tirsan gobolladooda si ay dowladdu u noqoto mid ilaalisa danaha beeralayda ku dhaqan koonfurta Mareykanka. Dood sanado badan socotay kadib, Hamilton wuxuu ballan qaaday inuu caasimadda siiyo gobollada koonfurta haddii Koongareesku uu oggolaado inuu dib u habeyn ku sameeyo dhaqaalaha Mareykanka. Ugu dambayn, Koongareesku wuxuu oggolaaday qorshe maaliyadeed oo gobollada waqooyi lagu siiyo lacagihii uga baxay dagaalkii xorriyadda. taas beddelkeedana caasimadda waxaa la siinayaa gobollada koonfurta, waxaana laga dhisay dhul ay ka tanaasuleen labada state ee Virginia iyo Maryland, waxaana loo bixiyay Washington. Taariikhda mararka qaarkood miisaanka taariikhiga ee magaalada ayaa kaalin ka qaata in loo aqoonsado magaalo madax ama caasimad. Tusaale ahaan, magaalada Baghdad ee caasimadda dalka Ciraaq waa magaalo taariikhi ah oo caasimad ahayd xilliyadii ay jireen xadaaradihii iyo ilbaxnimooyinkii kumanaan sano ka hor kahana qaaday dacallada labada webi ee Dijla iyo Furaad. Sidaas la mid ah, Dimashq oo haatan caasimad u ah dalka Syria waa magaalo taariikhi ah oo kumanaan sano ahayd magaalo madax looga taliyo dhul ballaaran oo ka baaxad weyn inta hadda loo yaqaano Syria. Isla sababtan ayaa magaalooyinka Paris iyo London loogu doortay inay noqdaan caasimadaha Faransa iyo England. Raritaanka caasimadaha mararka qaar dowladuhu waxay go'aan ku gaaraan inay beddelaan magaalo madaxdooda sababo la xiriira siyaasadda, dhaqaalaha ama xataa arrimaha bulshada. Waana sida ay sameeyeen marar badan boqortooyadii faraacinada ee Masar oo u kala guuray in ka badan 15 caasimadood. Sidoo kale boqortooyada Roomaanka ayaa yeelatay 5 caasimadood
kuwaas oo boqortooyada laga xukumi jiray xilliyo kala duwan oo ka mid ah taariikhdooda. waqtigan la joogo waxaa caasimadahooda beddelay dowlado badan oo ay ka mid yihiin Bakistan oo Karachi beddelkeeda caasimad ka dhigatay Islamabad, ama Russia oo isku beddeshay St. Petersburg iyo Moscow, halka Brazil ay ka guurtay magaalada magaca weyn ee Rio de Janeiro una guurtay magaalada cusub ee Brasilia. Cumaan, Filibiin iyo Sacuudiga ayaa ka mid ah dowladaha beddelay caasimadahoodii hore nidaamka caasimadaha badan. dowladaha qaar ayaa aaminsan inuusan dalku yeelan hal caasimad oo keliya, sida uu sheegay professorka iyo siyaasiga weyn ee David Gordon. tartanka ka dhexeeya magaalooyinka dalka ayaa sabab u ah inay wadamada qaarkood ay yeeshaan wax ka badan hal caasimad. tusaale ahaan, Bolivia magaalada La Paz waxaa lagu qeexay inay tahay caasimadda fulinta ee waddanka, halka magaalada Sucre loo aqoonsaday caasimada dastuuriga ah ee waddanka. tusaale kale, South Africa waxay leedahay 3 caasimadood oo kala duwan. Pretoria waxaa lagu magacaabaa caasimadda maamulka, halka Cape Town ay tahay caasimadda sharci dejinta. magaalada saddexaadna waa Bloemfontein oo loo aqoonsaday caasimadda garsoorka. Soomaalidu waa bulsho leh taariikh aad u dheer, isla markaasna ku dhaqan goobo istiraatiiji ah. waa bulsho leh tayo ay ku dabooshay tiradeeda oo aan u dhigmin qiimaha dhulka ay haysato, oo marar badan la kulmay damacyo dhulboob iyo dalballaadhsi oo kaga imaanayay awoodaha adduunka iyo dadyooga deriska la ah. taariikhdeeda waxa uu hana qaaday boqortooyin kala dambeeyey oo qarnigii 15aad gaaray baaxaddii iyo fiditaankii ugu weynaa. waa taariikhda dowladdii Axmed Gurey ee caasimadoodu ahayd magaalada Harar, ayna ka arriminaysay inta ugu badan dhulka maanta loo yaqaano Geeska Afrika, kasoo bilow xeebaha Casab iyo Musawac ee dalka Eritrea, kuna dhamee xeebaha Daarusalaam ee Tanzania iyo jasiiradda Zanzibar. waxaa iyana jiray imaarado iyo saldanado xilliyo kala duwan ka hana qaaday magaalooyinka xeebaha ku teedsan ee Banaadir, Marka, Bandar Qaasim, Saylac iyo Berbera. Muqdisho ayaa noqotay caasimadda ay ku heshiiyeen labadii gobol ee gobonimada qaatay 1960kii. burburkii dalka waxaa la hirgeliyey nidaam federaal oo meel fog ku tuuray wax wada lahaanshihii iyo midnimadii ummadda. state walbana waxa uu meel la taagan yahay calan iyo caasimad u gaar ah oo uu leeyahay. gobollada NFD, Soomaali Galbeed iyo Jabuuti. Soomaaliyada maanta uma arkaan mid lagu soo hiran karo ama midhaheeda la dooni karo, waxayna ula muuqataa in alla ka badbaadiyey dhibaatada dhex taalla Soomaalida xorowday 1960kii. Somaliland 30 sano ka hor ayay ku dhawaaqday inay gooni u istaagtay, walow aysan helin wax aqoonsi ah laguna xidhay Soomaaliya inteeda kale. haddana caasimad iyo calan u gaar ah ayay samaysatay, waxna uma oga midnimada xamar lagu hadalhayo. inkasta oo mawduucu ahaa mid aan si weyn u qusayn dalkeenna, haddana marka laga hadlayo bulshada Soomaalida waa muhiim in la isbarbar dhigo tagtada iyo taallada si looga dhaadhiciyo inay abuuri karaan timaado qurxoon oo u dhiganta tagtadii ay lahaayeen awoowayaashood. ugu dambayn daawade, doorashada caasimaddu waxaa saamayn ku leh arrimo kala duwan. dowlad walbana waxaa laga rabaa inay tixgeliso daruufaheeda gaarka ah si ay u xaqiijiso rajada shacabkeeda una gaadhsiiso tanaad iyo badhaadho adduun. daawade, waxaynu soo gaadhnay gabagabadii muuqaalkeenna maanta. fadlan, haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato kanaalkeenna, soo dhowo oo subscribe saar. sidoo kale, haddii aad ka mid ahayd bahweynteena ugu xidhan, muuqaalka like saar, siina sheer gare si uu gaadho asxaab kale. mahadsanid.